السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مركلة قصة أنا ما أنت وحيت هاي قبر سكولية ما أنت جعلتها أيضا برضو ويل أو سكولية يعني ضلني يرضى بحواي سكولكم كذا دجانا بحواي شو كان سيد أحمر مركز شو كان سيجي قبدي ويكي وجعلتها ويكي ولا سي وذي يعني أشجع وجع على هذا ما ليه كري أديك ولا سي وذي جعل كان بينتا gabadhii jaceylkiisa ugu dudeen adiga waxa waaye iskuulka waxay noqotay dugsi sare dhamaad iyo gabagabaa la joogaa markaas waxay ku dhahday ani nina isoo doontay marka nin da'weyn waaye marka ninka reerkii la rabo marka ninka reerkii intuu soo waa ogtay aan ku jeclahay adna waa jeceshahay marka iga soo doon reerkeena inta ninkan leegu darin hadda iga soo dooni weysan waa ku qasbanahay ninkaas inaan ogolaado wuxuu yiri bal hadeertaan bal xala raadinaynaa ordo iska bax way soo baxday guriga timid aabaheed wuxuu soo hordhigay wuxuu yiri gabriyay waa dhameysay dugsi sare jaamacad ninkan wuu ku ogolaadaa jaamacad inaad dhigatid laakiin bisharad waxa ninkan inaad guursatid ninkan wuu ku ogol yahay xulbo ninkan runtii gabadhan mar hore arkooda wuu jeclaaday wuxuu sugay ilaa dugsi sare ay ka dhameyso gabadhii wuu jeclaaday wuxuu rabaa inuu guur xalaal guursado reerkoodana ka soo doontay waxa dhan oo talabaadkooda ee rabeen oo dhan wuu ogol yahay mahar maxaa dhihi jiray sooriyo adduunyo wax walba aroos lagu dhigay gurigiisa wixii dhan soo diyaarsaday gabadhii wixii tir ninkii wacdaa way u sheegtaa maalmo wixii tiraahdaa adiga seertaa wax noo mahaysid miyaa aniga saamaxan suubiyaa aan maalmo ku sheegayaa aniga reerkeygii waxay la rabaan ninkaasaan ku leeyahay adiga wax ma ii wadid miyaa asagan xulay ani maxaa haystaa maxaan ku guursanaa maxaan ku wadaa raba adiga waa soo wadeen muddo loo wado annahay marka ugu dambeeyso gabadhan reerka wuxuu soo abdoojiyo waxa dhahay ninkii soo doonanayo ogow caawa waxa waaye farantigeliskaaga iska ogow asaga iyo wacdo waxay tiri ani ninka soo doonanayo adana adaa ii haynin tiri aniga aabahay madaxiisa hoos ma geyn karo aabahay hadalkiisa raacaya waa guursanaya adaa daneysa waaye adaa xnoo qabo waaye marka waxay tiri aniga reerkeygii ku gacan seeraay ayagaan hadalkooda raacaya noo kala wadniyo bas uma soo jawaabin shibuu ka yiri adi farantigiska la sameeyay waa la joogay waxa la bil hebel maxaa dhihi jiray 20keedii ayuu gurka dhacaya bishii hebel 20keedii markii intaan la gaarin ee 10 maalmood ka dhiman tahay bishii ayaa waxa la marayaa 10keedii 10 maalmood markay ka dhiman tahay arooska la isku diyaarinayo wax walba la wado ninkii soo buraaray waa xariifkii jaceylka wadi hadda iyo wuxuu soo bilaabay iyo gabay qorow iyo jaceyl geeraar iyo adduunyo gabadhii markaas waxay tiri adiga adaa inuu isiisay ani guura galaniyo danahaaga raaco aniga nin jeclaan helay ninkan waa nin ani jecel waa nin rabo inuu guursado guur xalaal iga rabo adiga laakiin nin wax ii haay ma tiido maalin soo waday soo maalin gabay soo diray qofkan qof wax jecel waaye oo meelo laga marayo yaqaanaay oo hadalku ugu waday adiga ana haya habeenkii ugu dambeeyay ee suuxii arooskeeda maalintii dhici lahayd ayuu hadana soo markuu soo wax ugu soo qoray qaban weyse oo telefoonka soo wacay markaas wuxuu yiraahday miyay maqlay waa ku maqlaya aniga waa ku jecel oo yiri inaan ku guursan diyaar u ahay inaan maxay ahayd tolo wax walba sameeyaan diyaar u ahay aniga hadda aabbaha kama soo dooni karo xoolo ma haysto laakiin waxaan ku sheegayaa farxadan ku haya hooyaday way dhimatay gurigiina anaa lahaaday guriga kaligay waaye anaa iskale hooyaday allah yarxamo waa dhimatay maxay ahayd tole waxaan noo soo qabanaa maazuun waxaa la dhahaa sheekh wax nikaaxinaya inuu keenaa waa sii diyaarinaa 2 shuhuudaan sii diyaarinaa adiga soo foko kasoo tag anaa jeceshahay ninkaas ma jecel anna waa ku jeclahay kasoo tag meeshay naftaada jeceshahay aad kale iimo gabadhii waxay tiri waa fikir ma yaal waqti lagu fikir ma taale soo bax gabadhii telefoonka markay dhigtay waxay istiri wadnahaaga raac aqligeeda ma raacin waxay tiri wadnahaaga raac wadnaheedii raacay cidii dhinacyada iska fiirisay soo fakatay cidina waxay u maleeyaan inay guriga ugu jirto ee guursanayso ninkan diyaar u tahay inay guursato yaa buu jooga waa laga dhuntay fagay soo tiriyay baskeeda kusoo dhacday say baraf soo leeyahay ninka gurigiisa taqaanay albaabka soo jukaysay albaabkii markuu fakka siiyay waxay sugaysaa sheekh waxay sugaysaa 2 nin oo marqaatiyaal yaa buu jooga meeshan qof ma fadhido albaabka markay dalaq soo tiriyay albaabku qartam siistay
markaas waxay tiri hay inta gudaha u gashay waxay tiri hay niyo kuraasta waa tanahay sheekhi ah maxay ahayd oo macsuunkina ah fadhiiso yiri macsuun oo soo socotaa yiri sheekhna waa soo socoyahay fadhiiso maxaa bismillaah maxaa ka qaldan hadda adoo neeftuuraya timid fadhiiso markaa soo qaato boorseeran soo qaato waxay tiri dishida dhinaca kale aan kasoo baxay saasaan ku idin fadhiiso yiri nasoo yiri waa soo socdaan telefoon been tu qabsado telefoonka qaraacayo way soo socdaan fadhiiso hayee tiri qoftan maxay u malaysaa ninkan guur xalaal inuu diyaar u leeyahay nin u soo wado sheekh u soo wado marqaatiyaal u soo wado waxa dhan uma soo wado laakiin iyada saasay la tahay waa baxay cabitaan oo keenay cabitaankeeda adduunka ugu soo tiro gacanta ka saaray cabitaankeeda wiiw isku siisay meesheeda ku soo xisay waa ka danayste shaqadiisa ka qabsaday a'uudu billahi min shaytaani rajiim shaqadiisa markuu ka qabsaday abaaheeleysa u jiiftay u tiili habeenay noqotay u tiili ninkan shaqadiisa ka qabsaday fadhigu iska fadhiistay hadday soo kacdo qoftan xanuun ay dareentay waa soo baxday meesha ninkaan u timid ayadoo rafaadsan dharba qudin wuxuu yiri hay ku soo dhawaad nolosha cusub mii meerisay tiri ani miirkay waxay ugu dambeysay tiri marka cabitaanka cabay ka bacdi ugu dambeysay adii kale mii meerisay kuma meersanayo kuma meersanayo dhaxkooda wuxuu yiri laba mid adeeg ku taalay albaabka ka bixaysaa yiri hadalkayga dambe taas oo qaadiyay waxaan ka hayaa ka duubay fiidiyoyada ka duubay ka hayaa haddana hadalkayga soo qaadano yiri adeeg ku fronto iyo yiri ina ila noolaato yiri guur la'aan aan ku wada joogno meesha aan ku wada joogno subhanallah hadda oo hin ijabsatay waba si uu iskaliga wuxuu yiri hay go'aan ma qaat abaa waxba inuu weynin markaas waxay tiri yaa go'aan waa qaatay tiri haddaan fikirtay go'aan waxaan ku qaatay tiri waa ay qayaantay tiri saa ay qayaantan allah ku qayaana koode tan waa igu dhacday tiri soo qasho ma lahan ilaahay qabaa koode laakiin ay tiri inta adiga xaraan kuula noolaa lahay nafsiyeed ina dhaafiya iroon tiri ma salaam kugu ma noolaanay albaabka ka baxo yiri hadaad hadalkayga dambe soo qaado yiri mise magacayga soo sheedo waxaan kugu sameeyay hadaa sheegto yiri ballan waxa uu fiidiyooyalka inaan noo yiri adduunka ku faafiyo waska soo baxday gabadhii ayadoo waa soo baxday jidka baabuurta xooga maraya dhex bartankiisa istaagtay yani inay isdisho nafta isdhaafiso isla aabaha hadaad u tagtid wadnaha istaagaa hooyada aabaha waa dhimanaya hadaa wixii sheegtid wayba ka daran tahay fadeexan way kusoo dheertay maxaa samaysaa maya xagga istaag halkaas istaagtay baabuurka xoog u socday ku yimid ilaahay amarkiis baabuur ninka qaba karo ah buu joojiyay asii naagtiisa isa saarnay waa nin inaagtiis baabuurka xoog ugu qabtay jidka dhex bartankiisa ninkii waa xanaaq war waxaan dhaqantay jidka maxaa jidka ku joojiyay gabadhiis naagtiisa waxay tiri bal u ka hadiyay tiri gabadhan xijidku istaagtay isku dilayso ina ogaanaa jirto wax yar ma ahani bal u ka hadi way soo degatay gabadhii gacantay ka soo qabatay waxay tiri ma ana dhimo waa noo sheeg bal kaale wixii jiro noo sheeg gabadhii oohin wax ma sheegtaa oohinay faqsanays gadaal la fadhiisatay waxay tiri ka warnay tiri jidka gees u istaageen waxay dhaday ka warnay tiri hadaan gurigeyga ku geyn anaga reer isqabaanahay wuxuu dhibaato lagu mageysanay haddii dhibaatada aad qabtay iyo waxa aad qabtay iyo waxa isku dilaysa haddaad noo sheegtid see u aragtaa waxay tiri waaya waa dadejiyeen waa soo wadeen biyo meesha hayeenay siiyeen biyay cabtay gurigay keeneen waxay dhaheen bal hadda habeen waaye gurigan kuma gey karnee guri uma socday tiri asaalid haye xikaayadaada noo sheeg maxay tahay qisadaa waxay tiri ninkaasaa isla soconay saaxiibo ahayn intaasaa isdaba soconay iskoola isla dhiganaynin inuu qayaana malaynaynin nina i guursanayay guurkayga diyaar la ahaay maxay ahayd toole saakay meherkayga dhici rabay guurkayga dhici rabay maalba usoo sheegaa waxaa dhahdaa nin yahow wax iskuma haysa wax iskuma haayo nin wax haysta ma ahayn aniga tiisaan u raacay hadda wuxuu yiri hooyadaya dhimatay wuu ku guursanaa wuu yiri aqligayga ma dhageysanaynin ee wadnahayga dhageystay tiri wadnahaygaan soo raacay tiri asaga hadaa imin wuxuu yiri qofsi ugu sameeyo saas ugu sameeyo cabitaanku waxa igu daray wuxuu yiri hadaan sheegtin wuxuu yiri ogow fadeexo kalibiyanka ahaya waa faafina hadaad aaminsantii ku roonada hadaa ila noolaatin saan aan ku wada noolaan waa ka sii fiican tahay marka aniga ma ogolaan tan way igu dhacday inaan sii galay tiri xaraan kale tiri ma ogolaanay tiri tan mid igu dhacday noqotay tiri mid aan raali ka ahay ma ahayn tiri anigu ku guursanaa islahay tiri buji aan ugu noqdo reerkeen ma laha inaan dhinto aan go'aan ku gaari bal waxay dhaheen u kaaday wax walba ay dhacaan qadar Allah kama shaa ku dhacday wax walbo waxa way qoraar rabbi waay inkastoo adigana shaydaanka ku daba aqligaaga iyo maskaxdaada aan ka hashanin wixii dhaceen way dhaceen bal u kaaday
reerkiina wacni way waceen telefonka abiyo wacay wuxuu bal isdaji waxaan ku sheegan rabaa aniga nin hebel la yiraahdaa reeraan leeyahay arkaan deganahay dhibaatada jirtan ku sheega iga dhigeys adoon qaylinin adoon xanaaqin waa ka dhigeysanaa wuxuu yiri gabadhaadii ayaa maanta annaga baaburka aan wadanay ku kula gooribnay annagoo dardar rabno aan baaburkii ilaahay amarkiis waa qabanay oo ilaahay nagu ma gaarsin ayadaa jidka istaagtay inay isdisheertay maxay isku dileys saasaa ku dhacdo gabadhaadii waa la xoogay ninka islaad maanta guursana ayaa qayaano saas u galay ayadana waxay go'aansato nafta inay isdhaafsiso inay guurkeeda maanta dhacayn wixii dhan way noo sheegtay adoogii wuu yimido wuu dhageystay wuxuu yiri wixii dhacan waa dhacayn inuu ka noqosho ma lahu dhahay waxaan sameeyay ma aqaan way ugu dhacday tane soo bax wuu iska soo waday adoo gurigeedu keen guriga markuu keen ninkii uu wacay wuxuu yiri waa ku baryaa wiilkeedu khayr Allah ku siiyo gabadhii waa iga soo doonto waa guurso lahayd kuma dhahay yiri gabadhii xakaayada saasa ku dhacday dhibkaas ku dhacay kuma dhahay qasab ku hayso qasab ku guurso kuma dhahay laakiin hal isxaan ismay hal bil yiri dadka hortooda yaa inaan ku ceeyoon hal bil soo qabo yiri haddii harto guriga xataa haska joogto hal bil bis arooska ogolo hal bil qab kadib fur inta isxaan ismay Allah ninka nin boqor oo fiican oo ahay wuxuu yiri waayahay dadka bil aadanka isku mid ma wuxuu yiri waayahay dhahay oo ku ogol hooradeer halka bil uu guursaday halka bil isbuuc ugu horeeyay waana watay gurigiisa oo geystay laakiin korkeeda ma uusan taaban hal isbuuc markii la joogtay aabaheed dhibaatadii uu adkeysan waayay wadnihiisa istaagay ila murugtii ka badatay isbitaalka markii la ordayn dhaxda ku dhintay waxa loo soo sheegay in aabaheed inta ay hooyay meeshaan iska barwarta ana sabab aabaheed ninkii dhibaatada timid iyo dhibka soo kordhay reerka iyo odayga wuxuu ku dhintay wixii dhan wuu ogaay wuu fiiriyay wuxuu yiri dambi qofka gasho yiri ilaahay baa cafiyo anoo bil aadan ma cafi wayna wixii dhacan waa dhacan nin gabadhay waxaan go'aansaday inaan ka qabo oo nin inaagtis noqono oo reer noqono wixii dhacan waa dhacan qalad dambane ilaahay naguma keeno adna aad qalad dambe gelin maxaa ka tiri in reerkan dhaqano oo sidaad ku qabo maadaama aabahaaba oo dhintay wuxuu yiri ani inaan kugu daydo oon ku furo qaladan arkaa aabaha balantiisa saas ay isku balanay laakiin aniga maanta balantii waa ka baxo yiri waxaan jeclaystay inaan reerkan sii wado oon ku qabo oo reerkayga iyo maxaa la jiray gurigayga wixii isku haysto maxaa ka tiri gabadhii farxad waa waxay tiri waa ogolahay tiri waana mahadsantahay jazaakallahu khayr anigana waxaa ilaahay ka baryay tiri inaan zawj saalix in ilaahay iga dhigo oon salaamo alxamdulillah laakiin waxa way ku camal falasho dhalinyarada yaryarka ah gabdhaha yaryarka ah siiba gabdhaha yaryarka ah waxa way haddaan nahay dumar haddaan nahay waa iska qalbi jilicsannahay waxa way waxaan raacnaa mar walba maskaxdeena ma raacno waa wadnaheena raacnaa wixii naloo sheego run aan isaga maleynaa kalmad tayib laba kalmadood macaan haddana la waa iska qaadanaa laakiin ani waxaan dhihi lahaay gabdhaha yar hadda soo baxayo khayr Allah idin siiye intaadan falin ka fiirsaa liday waalidkiin hadalkooda dhageysta ninkii waa kusoo meelsanaa hadda ku yiraa waqti xaalad la joogna meher ma jiro waageeda waa jiri jirta intuu wada soo meelsanaayo aba ku inkir gadaal dooraba laakiin hadda kii meher ahaa kii oo wadaayo soo meelsanaayo ilaahay hortiisa ku inkiraay kaasa waroonayba oo guur xalaal inta gasho ku inkiraay laakiin kuwa waxa yimideen hadda taan inta ku guursanay ku dhahan ay ku wadaan meesha masaafada intaynu ku geenin ee dantay lahayn ka gaaraan kuleeyahay ku guursanay yaa way kaas keebay ku aroosay marka aan waxaan dhihi lahaay gabdhaha yaryar oo khayr Allah in siiye intaadan falin ka fiirsada waxa sameeyay ka fiirsada ninka alla fakanaysin iska dhaafa ninka haduu waxba haysan xataa reerkeen ku qanciya ina isguursataan idinka nolol idinka dhaxaysa reerka ma dhaxayso u sheega maxaa xataa wiilasha iraada xataa waan la shaqeynaa anaan la shaqeynayo إذا نك أدارت مصوت الله شقي حتى waxay istimixin isku darsada reerka ula taga ilaa laba qof oo israftiinaatiin laakiin habadan batatan haraacin nin hawa isku raacin bo iga taladeed insha Allah tanti lamid aan isku ilaahna wada kulmiyo inta jira Allah caafiyo inta dhibka Allah ka saaro xawaaye inta awlaad la'aan haysan awlaad baariyo saalix Allah siiyo inta haysta aniga ku Allah noo barakeeyo eega awlaad saalix Allah naga dhigo waxa waaye taqwada iyo tawxiidka Allah nagu dilo wixii dhib Allah naga qaado tawfiiq Allah insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wuxuu yiri kaali imo nikaxii guriga ka dhaxdhacaya waa soo diyaari sheekh isku keenin lahaa jaceelka aan ku qabo wax yar ma ahan ninkan algu diray ewl ma aan jeclaan naga jecleen
anigana hadda waxaan go'aansaday inaan keeno maadaama aan lahaa guriga ani lahaaday hooyaday ee dhimatay marka xabiibtii waa ku jeclahay kaali imo aan ku inta isku guursanay gabadhii way soo dhuumatay markay soo dhuumatay gurigooda ka soo dhuumatay u timid ninkii maxay kala kulantay